aadan bile maxamed waa aabbo Soomaaliyeed ku nool degmada Xudun ee gobolka Sool waxa uu ku dhashay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. 11 sano ku dhawaad uu ku noolaa degmada Xudun sida uu sheegay. Wuxuuna ka shaqayn jiray raacidda xoolaha magaaladaasi. Taa beddelkeeda waxa soo food saaray dhaqaale xumo aad u baasan. Markii la joojiyo shilinka Soomaaliga wuxuuna dareemayaa xanuun ka haya lugta iyo dhabarka. aadan waxa uu gargaar weydiistay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan maadaama uu ku hanweyn yahay inuu ku laabto deegaankiisii isaga iyo carruurtiisa oo kala jooga meelo kala gedisan. Sidoo kale waxa uu sheegay in duruufaha nololeed uu ku jiro haatan ay tahay mid aad u adag. الرحمن الرحيم أنا وحنا واحد آدم بلا محمد آدم بلا محمد على أيام هذا وحنقول شيء قبل كسمايو ما نقول شيء نواحي كذا عجمي وهو بطناته مركا ولا اليوم مركا وحنا لا هاي أنا وخدر واحد دقنا النقال مال خميسة يقول لي حضن كوي تمسن أيام شوي وحنا راعي ريها لرعاء أروس أيام راعي دور سنة marka hadar wala iska daayay xanuun ila soo gudboonay awdeed ayaan u leeyahay oo lix xanuunsan ayaan hay marka iyo waliba dhaqaalahooda iska xumaaday hadii ay kulay markii kaashkii la waayeen dhaqaalahooda iska xumaadeen marka iyo dana kale gaar ahaan xanuun bay ila soo gudboonaaday iyo waliba waxaan hanin aruurtiis halka ka biirsho aruurtiisina kala yaacsan saddex meelood beledweyne iyo wajaal iyo qardhay aruurteeda kala joogeen halkaas aruurteeda ka biilin jiray marka xanuun bay ila soo gudboonaaday hawsha iska dhibanaatay laakiin waxaan dhacday marka in hawshii aanu bixi kari waayo in muddo hadda 8 bilood bilaa shaqaan iska ahaa oo ariga waan ka fadhiistay marka sida darteed waxaan ahay ninkaas oo 11 sano xudun joogay ta kulliba maxaan ku leeyahay alxamdulillah rabbil caalamiin marka xanuun baa ila soo gudboonaaday waxay tagtay dhaqtar iyo waxaan baan u baahday marka waxaan doonayaa walaalayaal inta muslimiinta walaalaha in la soo caawiyo oo wax la taro ayaan doonayaa xanuunkaas iyo soo ila soo gudbana awdeed iyo waliba wadankiiba niyadan ku haya carruurta inaan ma isku kala dagaatan aan ka hayo wadamada iyo dhaqaalan ku geeyana ma haysto tan igu daran xanuunka caafimaadka hadda ay wanaagsan bil caafimaad baan hay xanuun bay haya dhaqtarna waan doonayaa dhaqaalan ahay marka sida darteed marka walaalayaal waxaan doonayaa inta muslimiinta walaalaha inay soo caawiyaan waxay taraan marka walaalayaal waa dantaasaan leeyahay xanuunkaaba igu daran oo hadda ma dhaqaaqi karo marka waxaan doonayaa walaalayaal inta muslimiinta walaalaha baahida ay hayso in la iga soo baahitiro marka xaaladahaas ayaa jira marka in wax la qabto oo la caawiyo ayaan doonayay laba arrimood igu daran bay haysta xanuunka iyo carruurteeda kala yaacsan waa doonayay wadanka inaan ku xeeyo wadanka wadan fog way Kismaayo wixii ka shisheeya ayaa carruurtii damacay inaan ku haysto marka dhaqaalaha isku keenana ma hayo iyo xanuunkii ugu soo kordhay oo dhaqtar aan u baahanahay marka sidaa darteed arrimaha isla soo gudboonaaday iyo bagamadooda imanka anigu aan ahay in wax laga taro ayaan doonayaa walaalayaal marka waxa weeyaan ninka walaalka ee kowte anaa soo doontay oo maxaan ku raadayay baahida ay hayso awdeed baan u soo doontay mana kabarda inuu caawiyo marka wiilkaas wuu caawiyay ilaahay ma hadlay marka waxaan ku raadayay anaa in muddo raadinayay baahida ay hayso awdeed oo kabarahaasi doonistu dib igu haydo ilaahay ila kulmiya wuu caawiyay way caawiyay ninkaasi marka alxamdulillah rabbil caalamiin saas arintaydu tahay marka walaalayaal aad iyo aad baan ninkaas soo dhaweeyay oo kabarda igu soo dhaweeyay marka baahi weyn baan ii haysay marka alxamdulillah rabbil caalamiin walaalayaal marka waxaan ka doonayaa kan caawiyo kabarda igu caawiyay iyo islaamka ilaahay muslimiinta walaalaha in arrimaha ay sheegtay wax igala qabataan ayaan doonayaa la igala qabto marka saas baahida ay tahay marka walaalayaal xanuunka igu sii daranay hadda ma shaqaysan karo aadam baa la iga haya dhabarka la iga haya marka xanuunkaygu aad buu farbadan yahay tan baagmadooda igu daranay marka waxaan doonayaa walaalayaal in soo wax la taro wax la qabto ayaan doonayaa واي ان شاء الله ان شاء الله واي ان شاء الله واي محمد عويل كوته دقمة حدنا قبل كسول